gudoomiyaha degmada Xarfo Cabdulqaadir Cumar Jeylaani ayaa gaaray deegaanka laba gardeele oo ay ka da'een roobab mahiigaan ah. Roobabkii ilaa habeen hore ka da'ay deegaanka laba gardeele ayaa geystay khasaaro xooleed iyo mid hantiyeed. Roobka ayaa sameeyay daadad barakiciyay dadkii deegaanka iyagoo ay dul hooganayaan buuraha. Mid ka mid ah odayaasha deegaanka iyo gudoomiyaha deegaanka laba gardeele oo la hadlay warbaahinta dawladda Puntland ayaa ka warbixiyay roobka khasaaraha geystay. gaariga wakaas biyuhu xalay meesha ku dhacay ku jira arigu waa badan yahay raashinkii wixii hoos oo reerku haystay ama gogol ha noqoto ama dhar ha noqoto ama kaba ha noqoto hadda teeriyo xalay waka kabalaanta ku shaqeynayaayo ka biyihii labada kaba mid bay kala baxeen xalfeedkii kala baxeen marka roobka aan xoolaha guriga iyo carruurta abaar xun baa ka jirnay markii hore haatan roobkan baa ilaahay xalay noo keenay waa ku nimcoonay saar badanna waa geystay oo haatan dad wax kuma noqon laakiin duunyo iyo wixii haatan dadka meesha degan u haystay intaba khasaar badan baa ka soo gaadhay sidaad aragtaan waxaan dhex taaganahay biyo aad u tiro badan roobkii mawjidka ay xala qabtay deegaanka laba gardeele waxyaabihii uu geystay oo fudfudaaba waxa kamid ah sida gaariga dhinaca naga taagan oo kamid ah gaadiidka ay ku adeegan jireen dadka reer laba gardeele sidoo kale waxa jira khasaare nafeed oo ari kooban oo marka laga hadlayo xaafadan qiyaastii 10 neef oo biyo ay la tageen waxaad arki doontaan ama aragtaanba guryihii dadku ay ku noolaayeen waa kuwaana wardhafoor buu ku yaalaayo intaas ayaa idinku filan khasaaraha aan sheegay waxa weeye 10 neef oo xaafadahan ah oo biyo ay la tageen iyo 40 neef oo kale oo xaafad iyadana aan fogeyn ah walow aysan kuwaas 40 neef biyo aysan qaadin ay ku dhinteen dhibicdii xoogeedii iyo ma garanaysaa ay arigu uu ku qarqaray geesta kale gudoomiyaha degmada Xarfo Cabdulqaadir Cumar Jeylaani oo dhankiisa hadlay ayaa ka warbixiyay wuxuu meesha ku arkay iyo saameynta roobka uu geystay. waxaan joognaa maanta deegaankan waxa lagu magacaabaa laba gardeele wuxuu koonfur wuxuu ka xigaa waqooyi magaalada Bacadweyn degmada Xarfana wuxuu ka jiraa qorax u dhac meeshan xalay waa saad u aragtaan roob xoog leh ayaa qabtay roobkaasu dad wax ma yeelin laakiin hanti haday noqoto xoolo iyo haday noqoto dadka waxay cunayeen oo raashinkoodii ah iyo guryahoodii iyo gaadiidka aad arkaysaan hadda biyaha ku dhex jira iyo kuwa kale oo ayaguna meelahan hadda maartay biyaha ku dhex jira oo ku dhiiqday intuba wax buu yeelay ilaahay mahadis waxa ayna wax nafo bila aadan aysan ku bixin laakiin xaqiiqatan dadkan dad waxa ay awalba abaaraysan oo abaar muddo badan ku soo jiray roobkan sikada ayuu u yimid asagoo laga gaashaaman deegaankan xaqiiqatan waa deegaan halis ku jira biyuhu waxay hadda isku jiraan muddo ilaa 10 kiilo isku weer ah baan soo soconay gaariyada waxay yaalaan meel aad u fog oo ka soo lugayn inta biyan soo dhex marinay waxa weeye alxamdulillaah rabbil caalamiin marka ugu horeysa ilaahay in badan baan roob ka baryeynay ilaahu laftiisana waxa lagu yeelin laftiisa ayaa musiibo noqda mararka qaar kood isku bedela hadii biyuhu ay xad dhaafaan sida hadda halkan ka dhacdo kale deegaankan khasaare waxa gaaray xoolo nool oo ari badan baa ku baqtiyay meeshan waxa biyo kula xel waxa xira ari waa kuwan aragtan guri waa kuwa soo duubnay kuwana hadda waa tagi doona warka laga reebo wax yar oo ay xarunta xawaadan camay